taalo lagu xuso dadka geesiyaasha ah ee naftooda u horay gobonnimo doonka isagoo ka hadlaya guulwada siyaad bishii August 1970 waxa uu ku tilmaamay erayo qaaya leh qiimaha weyn iyo sida loo xusuusanayo dadkii gobonnimada dhaliyay kuwii u diyaar garoobay inay naftooda baxshaan iyaga oo u hibaynhaya dadka Soomaalida iyo dalka sharafkiisa ama xornimada in 16 sano kadib la xusuusto ee hadda koor la xusuusan waay saad u ogtihiin wax walba waxay leeyihiin daawo waxa la yiraahdaa xornimadu adduunka caalamka idil waxa loo ogyahay runteeduna ay tahay waxa lagu daaweeyaa ama beerteeda lagu abuuraa dhiig kaliya wax kale oo abuuri kara ma jiraan waxa dad kastaaba ay xornimo ku gaaraan markii ay daadiyaan dhiigooda oo ay marka dadna ogolaadaan dhimashada dadna ay wadaan mabaadi'da madax bannaanaanta doonideeda saas darteed dadka kan aynu halka ku xusuusanayno ama taariikhda halka aan ku xusuusanaynaa kaligeed halka kuma ahayn ama ka hor bay dhacday oo waxay ahayd midii bishii Janaayo sanadii 1948 ama waxay ahaayeen kuwo maalintaas nafteeda bishii Oktoobar loogu yeero shanteedii ku dhintay halkan yaa kuwa kaleeto u dhinteen dalka dartiisa oo aan hadda ka xusuusan karo doolo rag lagu laayay iyo meelo kaleeto oo ay ka muujinayeen diidada isticmaalka iyo doonida xornimada ay ka muujinayeen ay u dhinteen waxaan markaa ilaahana uga baryaynaa jannadii in Ilaahay ka waraabiyo kuwii u horay naftoodii sababta madax bannaanaanta iyo xornimada dadka Soomaalida ah meel kasta jooga